galabnimadii maanta oo sabdiha iyo dablay hubaysan oo adeegsada gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay waxa ay weerareen hoteelka Naasa Hablood kow oo ku yaala nawaaxiga isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. gaariga qaraxa saarna ay dablayda ku qarxiyeen albaabka hoteelka kadibna koox hubaysan ayaa gudaha u galay dhismaha hoteelka. ilaalada hoteelka Naasa Hablood iyo dablayda ayaa ku dhawaad saacad ku dagaalamayay gudaha hoteelkaasi. weerarka oo dhacay xilli dadka afurka isu diyaarinayeen ayaa sababay dhimashada dad tiradoodu ay leeg tahay 10 qofood oo hoteelka gudihiisa iyo dibadiisa ay rasaastu ku dishay iyo dhaawacyo tiro intaa ka badan. meherada ganacsi iyo gaadiid wadada marayay ayuu burburiyay xoogga qaraxa oo dareenkiisa laga maqlay qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho. goobta oo aan tagay ayaan kula kulmay dad gudaha hoteelka ku jira oo soo badbaaday iyo gaadiidka gurmadka degdeg oo dhaawacyada halkaasi ka qaadayay. goobjoogayaal ayaa ii sheegay in hoteelka ay ku jireen mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka tirsan qaarkoodna hoteelka ay degan yihiin. daqiiqada kadib saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo gaadiidka dabdamiska ayaa halkaasi soo gaaray iyadoona ciidamadu markii dambe ay ku guuleysteen in howlgalka ay soo gabagabeeyaan. ma jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo la xiriira baaxadda khasaaraha weerarkaasi ka dhashay iyo haddii uu jiro waxyeelo soo gaartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo hoteelkaasi deganaa. maamulada xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo qadka telefoonka kula hadlay ayaa ay xaqiijiyeen xarumahooda la dhigay dad dhaawacyo kala duwan qaba. Muqdisho ayaa martigeliye u noqotay weeraro iyo qaraxyo sababa dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. qaraxyadana waxay dhacayaan xilli ciidamada dawladda iyo AMISOM ay sameynayaan howlgallo joogto ah oo dadkii gaadiidka mararka qaar lagu baaro. baaritaanada iyo qaraxyada isbarbar socda ayaa lagu micnayn karaa jugjug meeshaada joog. cabdinaasir maxamed, telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.